بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta ayaa sirriga ugu dambeeyay aan halka rabaa inaan ka sii daayo dagaalka oromada iyo Soomaalida meesh cid wada rabaa maanta inaan dawladda Itoobiya oo cadeeyo Soomaalina oo cadeeyo caalamkan oo cadeeyo inta taa aan ka gudbin aanu gudbin waxaan rabaa marka hore anigu ummadda Soomaaliyeed haddaan ummad kale ka dhalan lahaa maanta waxa waayo way ugu faani lahaayeen horumar badan oo soo kordhiyeen way ka faa'iidi lahaayeen waxaan ka dhashay ummad Soomaaliyeed aad u xun kuwaas waa iska duugayo ballan baa idin kaga qaaday afaarooda kama hadlay laakiin waxaan rabaa sir inaan dawladda Itoobiya sida iga faa'iidaan siraha caalamka marka halkan ka sii daayo ay iga fiidaan dad caalamka ay ka fuliyaan dadka Itoobiya si u fulin doonto fiiriya aad baan ugu mahad celinayaa ururka oo wana laf mar walba taladeeda qaatay isagana sidii gudoomiyihii maaragtay aan iriha la daayo iyo sidii maaragtay qayaxnayd aan doonayay in ummadda Soomaaliyeed mabaadiidooda ay u xaqiijiyaan inay dadkan ka weyn yihiin qabiil iyo qabyaalad iyo qurun ay yihiin dad iftiin shanta Soomaaliyeed u soo baxay halkan markaan rabo inaan maanta aan cadeeyo yaa dagaal ka dambeeyo aniga cadaalad iyo run ayaad igu iimaanaysaan maanta Soomaalida ma jecla gaalka dil gartiisa nasiibaa leeyahay markaad maanta qayliyayso oo oroma ilaa si aad leedahay maxaad shilay ugu celin weyday ormada labada sano ee mudaharaadaysay waxa ku gaarsiiyay Cabdi Ilay buu ahaa markii Tigray waxba ay ka qaban weyday Cabdi Ilay bay ku soo hubaysay Cabdi Ilay markii kacaan baxbada dhabarka ka toogo laabay tiri 5 jeer buu weeraray 5 jeer mudaharaadku meel u socdo dhabarka ka toogto ka baabay markuu ka baxay dhulka ma taqaanaan markuu ka baxay magaalada la yiraahdo Mooyaale oo uu ku tagayay meesha la yiraahdo Asfu Tafarru uu ku tagayay Shashamane maxaad ugu qaban kari weydeen maxaad ormada leeyahay war Ilaahay ma taqaana warnada war Soomaaliya nagala hadla war Soomaaliya ninkan la hadla war anagu niyoon Tigray baan u soconnaa war Soomaaliya uma soconno markuu xabad ku dhufo way dhibar jibi jireen wiilashii mudaharaaday way fariisan jireen Cabdi Ilay bay dhijireen war naga qabta haddana markii dhan Cabdi Ilay wuu idin daayay ayay mudaharaad Tigray gadaal bay ka soo hadli jirtay wuxuu ka dilay 1 milyan oo ormo ayuu barakiciyay maalinka maxaad u heli weydeen Soomaaliya maalinka maxaad u heli weydeen dulliga Tigray u shaqeynayo okay waxaan rabaa inaan soo galo maanta yaa ka dambeeyo abiyaan hadda marka la hadlaya abiyow sirtan ku kashifaya Cabdi Ilay waxa la soo hadlay Tigray waxay ku dhaheen dagaalka oromada iyo Soomaalida rid si ay abiyo u fashilmo ayay dheen horeyna waan kugu sheegay message-kii adiga aqbashay baan ahaa ee aan kugu soo diray aad aqbashay ee aad haddii tilaabadan aad qaadi weydo way gudaheed waad fashilmi Cabdi Ilay military u bixi ka qaad xilka oo wana lafna sida ugu dhaqsaha badan ku soo gali dalkan haddii aad sameyn weydo dagaalka way ku guuleysanayaan waxay u ballan qaadeen hadduu fashilmo kullay ma deynayaan baa la yiraahdaa haddii uu gacanta ku dhigo abiyo iyo kooxdooda ninka in maxkamad la saarayo waxay dheen marka laba joos midiyaan haddii aad fashilinto oo ormo ay ku shaqeyn weydo Soomaaliya diyaarad baan ku soo direynaa waxaan ku siinaynaa nabadgelyo adiga carruurtaada maqali cid ku taaban kartana ma laha Cabdi Ilay filinkaas ayuu ciyaarayaa abiyo talaabada ugu dhaqsaha badan weerar Cabdi Ilay ka qaad waayo shucuubtii koonfurta Itoobiya markii sidan oo kale kii ay u shaqeynayeen uu yiri iscazil Cabdi Ilay iscazil baa lagu yiri waraaqdiisu wuu haystaa waa diiday laakiin shucuubta Itoobiya way iscashishay ma dhaweyn markaan idin sheegay wuxuu joogay markuu lahaa iscazil umuusan bixin meesha la dhaho Eritrea Cabdi Ilay isaga kuma Cabdi Ilay iyo Tigray ayaa ka dambeeya filinkan Soomaaliya gurbaanka aad tumaysaan daaya beenta aad u sheegaysan daaya dadkan Cabdi Ilay baad ka qaban lahaydeen maanta oromadii way xanaaqsan tahay nimankan xanaaqsan ee argoosanayo cadawtinimadii waxay qabaan Cabdi Ilay mar hore Tigray 2 sano ka takhaluslaayeen uu dhabarjibinta ugu hayay see lagu badbaadin karayaa maanta waxay ku simantahay Cabdi Ilay xilka laga qaaday bis kiiskan waa kiis close haddii Cabdi Ilay sida ugu dhaqsaha badan Cabdi uu kaga qaadi waayo abiye waxaad arki doontaan dagaalkaas u hirgalo Tigray oo ah dagaal Soomaaliya iyo Oromo ah yaa dhici doono bal taariikhdeeda aniga soo guda abiye sida ugu dhaqsaha badan waa inuu ninka xilka kaga qaado kiiskaas uu xirmaya waxa wadana waa Tigray iyo Cabdi Ilay baa wada cid kale oo dagaalkan wada ma jirto Cabdi Ilay waxa loo ballan qaaday hadduu kiis ku xumaado oo arko in lagu guuleysanayo dagaalka hirgali waayo in diyaarad la saaro ama uu fashilmo anaana fashiliyay
anigaana fashiliyey mabda'ayga waa intaa Soomaal intaasaan u soo galay kaliya anima soo galeen inaan dagaalkan xiro afjiro saasaan liiga faa'iidi doona talaabada Itoobiya ay qaad doontaan oo arki doontaa talaabada ee Soomaalida maartay ummadiinana halka fadhiya ee maartay idinkana Ilaahay halkaas maartay habaarkiisa halaagi Ilaahay baan idin yaan filay inuu ku dhici doono idinkana iska suga xilligeeda waxaan ku soo gabagabay dagaalkan Tigray iyo waxa wada Cabdiilay hadduu abiye talaabo ka qaadi kari waayo dagaalkan waa dhacaya waa weynaya Cabdiilayna waxa la yiri shid dab ah Soomaalida jir oo colaada kici oo dheh hobalayay war waana laayay niman Oromo ah oo OBDO ah oo wili la shaqeynaya ayaa jiro iyagana waxa marka iyagana jiro niman ONLF oo Oromo Liberation Front iyo niman oo Jawaari jawhar ninka la yiraahdo u tama oo iyagana doonay in Itoobiya collapse ka dhaco oo goosood noqotaan oo aan rabin ra'iisul wasaarahan ayaa jiro oo dagaalkan iyagana Oromada dhinac ka horanaya ayaa jiro kuwaana gacan adagoo bir ku qabo waxay dhex joogaan Oromada ee ana ku sheegay waxaana ka amar qaadanayaan Jawaari iyo waxay ka war qaadanayaan Oromo Liberation Front waxayna doonayaan in Itoobiya kala burburto la kala tago iyaga madax banaani bay aaminsan yihiin in dalka ka go'an Itoobiya wax la dhaho la waday ma aaminsana kuwaana gacan adag ku qaba hadii wiigan aad talaabada ka qaadi waydo adiga fashil maayo ani inta baa soo galay talaabadana waa arki doontaan inaan sida wax ku badbaadiyo baan doonayay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh